kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya qaramada midoobay oo hal shuruud oo kaliya ku xirtay inay ka xigto aqoonsiga Somaliland. Haddaba maxay tahay shuruudaasi? Tallaabadii ugu dambeysay ee loo qaadayo dhaqdhaqaaqan qaramada midoobay oo qasab looga dhigayo inay si degdeg go'aanka u gaarto. Turkiga oo weli soo jeedinaya mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud in wadahadalka ay ku soo laabtaan. Tallaabadii ugu cusleed oo hadda socota wararka laga helayo go'aanka dowladda Soomaaliya ee ku aadan nooca doorashada ay doonayso. Hubka dhigista caasimadda oo mar kale dib loo soo rogaal celiyay. Hubkii ugu badnaa Muqdisho yaalay oo mucaaradku ay u bixiyeen gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, iyo wararkii ugu dambeeyay bariga dhexe. Tallaabooyinka hadda socda, heshiisyada la gaaray iyo waxa la isku haya qayb ka mid ah daawan doontaan. balse marka hore si aan faafahinta ugu gudagalno waxaan ka dalbanayaa in muuqaalka aad noo share gareyso, leeg saarto, meel fog gaarsi, qayb ka noqo saaxiibada nagu xiran ee hela xogaha xasaasiga iyo warbixinada halkan aynu ku soo gudbino ayada oo aynu eegayno wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo kuwa gudahaba. Sidoo kale rukuma barteena YouTube channel, sidoo kalena furo gambaleelka digniinta aragtidana qaybta hoose faalada ama commentiga inoogu reeba. waa hagaaga haddii aynu markaan guda galno wararkii ugu dambeeyay dulmarkaad ku daawateen waa 23 bisha Juun subaxnimo Talaadaha. wararka haddii aynu eegnana adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada ganacsi, adigii ubadkaaga si sahlan ku barta quraanka kariimka. Markazul Ihsaan online waxay diyaar idin la tahay barashada quraanka kariimka iyo shareecada islaamka 24 saac. markaskan waxaa diyaar idinkugu ah macallimiin isugu jira rag iyo dumar, xeeldheerayaal ay madrasadooda ka aflaxeen, arday fara badan oo ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. si aad uga faa'iidaysato fursadan qaaliga ah, fadlan la xiriir lambarada shaashada kaga muuqda. qaramada midoobay ayaa shuruud adag ku xirtay aqoonsiga Somaliland, waxaana ay tallaabadaasi tahay tii ugu weyneed. waxa ayna ka dhigan tahay xilligan in ay si gaar ah u xoojinayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay tallaabada la xiriirta Somaliland, iyada oo ay wararku soo taraya ay sheegayaan inay socdaan dhaqdhaqaaqyadan iyo kuwa kale. tallaabooyinkan ayaa kuwii ugu dambeeyay, waxaana ay tani hadda ka dhigan tahay tallaabada sidoo kale la xiriirta qorshahan sida gaarka ah, waana midda soo dedejisay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriirta tallaabooyinkan oo ay sidoo kale hadda u muuqanayso in ay sii dardargelinayaan dhaqdhaqaaqyadan iyo sidoo kale tallaabada sida gaarka ah qaramada midoobay hadda ay ugu qaadayso arrimahani. doodan ayaa ah tii ugu weyneed, waxaana muujinaysaa hadda in ay xoogga saarayaan dhinacyadan iyada oo la eegayo tallaabadii ugu dambeysay oo ka dhigan in ay sii dardargelin doonaan qorshayaashan xasaasiga ahi. qaramada midoobey ayaa ah mid ka mid ah dhinacyada sida gaarka hadda uga shaqeynaya dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee la xiriira tallaabadan oo soo jiitamaysay waqtiyadii lasoo dhaafay, iyada oo ay si gaar ah hadda u xoojiyeen dhacdooyinkan. waxaana shuruudda ugu weyn ee hadda lagu xiray aqoonsiga Somaliland lasoo warinayaa inay tahay mid waqtiyadii lasoo dhaafay ka dhignayd inay xoojinayeen. qaramada midoobey ayaa dooda aqoonsiga Somaliland iyo arrimaha ku saleysan intaba waxay ka dhigtay mid markaasi weli taagan, iyada oo ay u eegayso xaaladahan aadka u culus iyo sidoo kale ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya dhinacyada, iyada oo ay mar kale diiradda saarayaan dhaqdhaqaaqyadii ugu waaweynaa. ayaa waxaa isu soo taraya wararka sida gaarka ah arrimahan loola xiriirinayay, iyada oo ay diiradda saareen dhinacyadii ugu dambeeyey aqoonsiga iyo dooda la xiriirtayba in ay mar kale tahay tallaabo aad u culus oo ay ku dhawaaqayaan, iyada oo qorshaha ugu weyn ee Antonio Guterres iyo sidoo kale qaramada midoobey ay gaareen lagu eegayo in si dhab ah ay u soo dhamaystiraan Somaliland iyo xukuumadda Ciro go'aanada laga doonayay iyo tallaabooyinka sida gaarka ah markaasi diiradda loo saarayay in ay shuruudahaasi si toos ah u soo buuxiyaan. waxaana diiradda hadda la saaraya qorshihii ugu weynaa ama tallaabadii ugu cuslayd oo loo eegayo in gabagabada tallaabooyinkaasi lagu daro. qaramada midoobey ayaa qasab hadda looga dhigayaa in si degdeg ah ay markaasi guddigii hore ugu dirtay ay u dhageysato dacwadaha iyo sidoo kale dooda la xiriirta arrimahaasi. sidoo kalena waxaa xoguhu ay sheegayaan in laga shaqeynayo hadda doodii ugu weyneed
ee ku saabsan arrimaha Somalilan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ay ka dhigan tahay mar kale in ay diiradda saarayaan dhinacyadani sidii loo soo afjari lahayna ay tahay midda sida gaarka ay uga shaqaynayeen waqtiyadii ugu dambeeyey tan iyo markii lagu dhawaaqay tallaabooyinka aqoonsiga Somalilan oo Israel wadankii ugu horeysay ay noqotay ku dhawaaqda waxay ahayd midda doodeedu u taagnaa sidoo kalena caalamka ay ka fikirayeen isku raacidda go'aan midaysan oo arrimaha la xiriira iyo qorshaha sida wadajirka ah ay ugu dhawaaqi karaan dhinacyadani iyada oo la eegayo tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee go'aanka kama dambaysta ah ee la xiriirta tallaabada aqoonsiga iyo sidoo kale waxyaabaha ku xindaaban. dhinaca kale haddii markan aynu eegno dowladda Turkiga guddigii ka socday ee dhexdhexaadka ahaa ayaa lasoo warinayaa in dhankoodu ay ka shaqaynayaan tallaabadii ugu dambeysay ee wadahadalada u dhexeeya mucaaradka iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Turkiga ayaa weli wada qorshihii ugu cuslaa uu isugu soo jiidayo sidii dhexdhexaad loogu raadin lahaa kulamada la xiriira tallaabooyinka gaarka ah ee ku saabsan arrimaha sida degdega dhinacyadu ay isugu hayaan, waxaana tani ay ka dhigan tahay doodii ugu weyneed ee la isku hayay waqtiyadii lasoo dhaafay oo ay mar kale ku dhawaaqayaan dhinacyadani, waxaana dooda oo ahayd mid aad u culus ay mar kale ku dhawaaqeen sidii loo soo afjari lahaa. waxaa shuruudda hadda hortaagan go'aanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale tan Turkiga ee tallaabooyinkani ay yihiin kuwo waqtiyadii ugu dambeeyey isu soo tarayay. waxaa la ogaaday dowladda federaalka Soomaaliya tallaabada ay qaadayso iyo sidoo kale go'aankan inuu yahay mid waqtiyadii ugu dambeeyey ay uga shaqaynayeen sidii ay u soo afjari lahaayeen. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab ka soo saartay qorshaha mucaaradka ee doorashada gaar ahaan nooca ay soo bandhigeen kadib markii xubnaha golaha mustaqbalka ay ansixiyeen hannaan doorasho toos ah oo ay sheegeen in dalka looga samata bixinayo marxaladda kala guurka ah ee siyaasadeed ee xilligan adag lagu jiro. wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdi Fataax Qaasim oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dowladda ay soo dhaweynayso in marka hore mucaaradku ay aqbalaan in la aado doorasho toos ah oo fursad la siinayo shacabka Soomaaliyeed. waxaase uu tilmaamay in laga wada hadli doono qodobada kale ee muhiimka ah gaar ahaan sida loo wajahayo xaaladaha ugu dambeeya. maanta haddii la isla yimid doorasho toosan, wax kale oo dictatorska ah waa waxa laga wada hadli karo oo tanaasul laga muujin karo, ayuu yiri wasiirka. sidoo kale wuxuu tilmaamay in muhiimaddu ay tahay in mucaaradku ay u madax bannaanaadaan taladooda, isla markaana ay muhiim tahay inay ka fikiraan danaha iyo maslaxadda guud shacabka Soomaaliyeed la xiriirta. waxa uu yiri wasiirku, garoonka ayaad hadda ku jirtaan, waad fiican tihiin, laakiin waxaan rajaynaynaa qaraaradiina inay ahaadaan kuwa madax bannaan oo aan idinka markaasi leedihiin. kadib waa idin fududaan doontaa inaad fahantaan shacabka maslaxadiisa iyo maslaxada dalka, ayuu mar kale sii raaciyay wasiir Cabdi Fataax Qaasim oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. jawaabta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyada oo maalin ka hor golaha mustaqbalku ay soo bandhigeen nooc doorasho oo toos ah oo cadeynaysa ama ay cadeeyeen in go'aankooda uu ka yimid tanaasul ay sameeyeen iyaga oo u turaya shacabka si looga heshiiyo khilaafaadka hadda taagan. xubnaha golaha mustaqbalka ayaa sidoo kale bayaankooda ku sheegay in hanaankan cusub uu waafajinayo xaqa muwaadiniinta Soomaaliyeed u leeyihiin inay si xor ah oo toos ah ay markaasi u doortaan wakiiladooda iyada oo la ilaalinayo habqaybsiga matalaadda beelaha ee 4.5ka. arrimahan ayaa ku soo aaday xilli xasaasi ah isla markaana ay socdaan dadaallo hoose oo ay garwadeyn ka tahay beesha caalamka kaasi oo lagu dhexdhexaadinayo dhinacyada isku haya siyaasadda dalka. Soomaaliya ayaa hadda ku jirta marxalad xasaasi ah iyada oo khilaafka mucaaradka iyo dowladdu uu isku rogay gacan ka hadal kadib dagaal dhowaan ku dhex maray xaafada ka tirsan Muqdisho kaasi oo khasaare xoogan dhaliyay. tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee loo qaadayna waxay noqdeen hadda kuwo arrinkan lagu qaboojinayo oo hoos loogu dhigayo isdiidooyinka waaweyn ee hadda socda.
dhinaca kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira tallaabooyinka dowladda federaalk Soomaaliya ay u qaaday hubka dhigista, xukuumadda Muqdisho ayaa ku adkeysanaysa hubka dhigista mucaaradka iyo golaheeda wasiirada. xubnaha siyaasiyiinta ee hore xilalka usoo qabtay iyo kuwa hadda haya ayaa si isku mid loogu sheegay in hubka laga dhigayo, taasi oo xiisadan sii abuureysa mar kale. waxaa la rumaysan yahay in cabsi badan ay ku abuurtay xubnaha mucaaradka ah hubka dhigistan iyo qorshahan dowladdu hadda ay la timid, kaasi oo muujinaya in waqtiyadii ugu dambeeyey uu ahaa qorshe ay dowladdu waday ka oo dardar gelinaysay, waxaana hadda ay qayb ka mid ah tallaabooyinkaasi u qaadaysaa dowladdu sidii ay usoo afjari lahayd. inta badan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ahi iyo sidoo kale mas-uuliyiintii hore xilalka dowladda uga soo qabtay iyo kuwa hadda xilal haya oo dowladda ka tirsan ayaa la ogaaday in hubkoodii ay kala baxeen magaalada Muqdisho, waxaana inta badan hubkoodii ay geeyeen gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe oo xogta laga helayo ay muujinayso. waxaa wararku ay sheegayaan in ay markaasi dhinacyadani hubkoodii inta badan kala baxeen magaalada Muqdisho, taasi oo ka dhigan mid markaasi soo kordhinaysa culays kale oo hor leh, waxaana ay hadda u muuqataa in markaasi ay tallaabadani tahay tii ugu weyneed oo ay ku dardar gelinayaan qorshahooda gaarka ah ee ku saabsan arrimaha ugu dambeeya ee hubka dhigista. xubnaha siyaasiyiinta qaarkood oo hubka dhigistan ay saameyn ku yeelatay ayaa la ogaaday inay tallaabadii ugu dambeysay ay u qaadeen arrimaha sida gaarka ah doodan ula xiriirtay, waxaana ay mar kale hadda u muuqataa in ay isku soo jiidayaan dhinacyadani tallaabooyinkii ugu waaweynaa oo dhinacba dhinaca kale uu u qaadayo. mucaaradka ayaa ku adkeysanaya go-aankoodii hore, waxaana hadda la rumaysan yahay in tani ay tahay doodii ugu weyneed oo marnaba aysan gorgortan hadda ka gelinin, iyaga oo beesha caalamka horey dacwado ugu gudbiyey, waxaana ay tilmaameen in awood la isku dayayo in looga qaado hubkooda, taasina aysan xilligan aqbalaynin ama aysan yeelaynin. dhinaca kale haddii aynu eegno wararkii ugu dambeeyey markana bariga dhexe waxaa ka socda weli isdiidooyin waaweyn oo u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan ayaa ku adkeysanaysa in marnaba aysan aqbalaynin in weerar iyo duulaan lagu sii ahaado Lubnaan, waxaana ay soo saareen mar kale digniin culus iyo shuruudo ay ku xireen in lasoo afjaro dagaalka iyo duulaanka ay Israa'iil ku hayso Lubnaan. koonfurta Lubnaan oo ciidanka militariga Israa'iil ay joogaan ayaana la amray in si degdeg ah ay uga soo baxaan haddii la doonayo in dhaqangalka heshiiska 60 maalin lagu dhaqangelinayo ama 2 bil lagu dhaqangelinayo ee la xiriira tallaabada heshiiska isafgarad ee u dhexeeya dhinacyada Iiraan iyo sidoo kale Mareykanka. Israa'iil ayaa la rumaysan yahay inay tahay caqabada ugu weyn ee hadda horgudban heshiiskaasi inuu dhaqan galo, waxaana marka la socda tallaabooyinkii ugu dambeeyey oo ah kuwii ugu waaweynaa oo arrimahan la xiriira. dooda hadda taagan ayaana ah mid waqtiyadii ugu dambeysay soo jiitamaysay. taliyaha ilaalada kacaanka Iiraan ayaana ku goodiyey inay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn haddii aan la joojin waxaa hadda socda, oo ay ku tilmaameen inay tahay beegsi lagu sameynayo dhinacyada qaarkood oo ay shuruud adag hadda ugu xireen. cabsi badan ayaa jirta oo weli Israa'iil ay wajahayso haddii Iiraan ay mar kale qaado tallaabooyin military, waxay noqon doontaa mid dagaalkii bariga dhexe dib u soo celisa. guud ahaan daawadayaal barnaamij wareedkeenana waa naga intaa.